waxaa deegaanka Sarmaayo ee gobolka Xaysimo lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu shaacinayay garaadka cusub Garaad Cabdulaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo maalintii shalay aabihii Garaad Saleebaan lagu aasay deegaanka Sarmaayo waxaana munaasabada shaacinta garaadka cusub ka soo qayb galay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oqaal waayeel waxgarad xildhibaano guurti haween iyo mas'uuliyiin kale oo dhammaantoodna halkaasi hadalka isaga dambeeyay ayaa sheegay inay isku raaceen in maanta laga bilaabo uu Garaad Cabdulaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed uu yahay garaadka beeshii soo dooratay dadka kalena ay ku raaceen xafladan bilan ee baraaraysan aynu isugu nimaadno ee lagu cayimayo oo lagu shaacinayo Garaad Cabdulaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud waxaan kaga soo qayb galay anigoo muwaadin deegaanka waxay ila tahay rag badani ama dad badani waxay ilaaween cidda aan ahay iyo qoyska aan ahay Garaad Saleebaan waxaa dhashay curadii Cali Koore waxaan ahay qoyskii geeridu ku dhacday ee lahaa isu imaatinka ama ciddii geeridu ku dhacday qoys ahaan shakhsiyaadka ugu dhow ayaan ka mid ah garaadka ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay janno firdowsa ka waraabiyo waxaan boorinayaa oo aan qolada boqorradayna ka taqaana ee gaalada xaggaa jirtaa waxay tidhaahdaa boqortooyadu ma dhimato boqortooyadu god ma gasho qofka ayaa godka gala laakiin boqortooyadu waa inay ka hadhaa waxaynu maanta caddaynay inaynu nahay bulsho ilbaxa boqortooyadii godka ina kama gelini boqortooyo cusub baynu saarnay wixii intaa ka baxsan wakhtigeeda iyo goobteeda ayaynu ka wada hadli doonaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu isugu nimaadno xafladanka lagu shaacinayo Garaad Cabdulaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud Garaad Cali waxaan u mayaa meesha waxa isugu geedii Garaad Saleebaan ilaahay ha u naxariisto waxaynu isugu nimaadeen intana meesha joogtaa waa intii jifida u ahayd oo inay wax boqorato inay ka ballanto inay isugu taad xaq u lahayd Soomaalidu waxa iska tiraahdaa kullay dadku inkastoo uu ku wada boqoran yahay ummadda oo dhan haddana meel buu ka soo baxaa meel raad buu ka soo baxaa annaga waxba noo gaara waxaan nahay annagu saldhigi meesha loogu yimi waxna waana laga sugayay waxana laga sugayay waxa weeye wixii lagu talaabsan lahaa annagu unug baan unug weelka marka la teesalka laga soo unka marka la unko dhamaystirka waa la isugu yimaadaa annagu unug baan nahay unuga haddaan nahay Sarmaayo haddaan nahay waxaanu soo unugnay inaan maanta loo kala tegin in garaad lagu caarashubo booski garaad la karinta ila soo taago aanu marnaan sababtu waxa weeye boos marnaan kara ma aha ummadana kama marnaan karo bableeshinka uu ka dhashay oo dhex joogay oo kala hagayno kama maqnaan karo marka waxaan dawanay anagoo soo maanday anoo kalsoonahay ummadda inta meesha joogtaan ay ehelkiisii u tahay inaanu anagu soo unugno oo meel wax soo taagno sababtu tahay waxa weeye anagu raad fadhi baanu ahayn way u fadhinay meesha ragga inta kale shirki niban meel buu ka yimi waxaanu soo unugnay anagu oo talka soo gaarsiinay inaanu soo taagno meeshii nin isaga la mid ah oo insha allahu intuu qaban jiray qabta intaa waxaan kaloo ku darayaa waxa weeye cid aanu soo taagnay waxay la tahay waa laga wada dhergsan yahay Garaad Cabdulaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud baan soo taagnay
ilaahay waxaannu ka baryaynaa mid xilkaa ilaahay u fududeeyo dadkaana ilaahay u sakhiro doortay in ilaahay u sakhiro isaguna uu noqdo nin haddii eebba kuu roon yahay dadkaa dhammaan mas-uulkoodiiya garaadkoodiiya dulqaad iyo miisaan baannu kugula ballamaynaa waxay ila tahay marka caaqil askar loo dhiibay anigana laygu xejiyey waa la garanayaa say u taallo ninkii walba waysay u taallo waa la garanayaa waxaa weeye taladaannu wax la lahayn askar baannu la lahayn qayskaannu la lahayn waannu la soo go'aaminay garaad cabdulaahi garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud waxaannu halkan ku shaacinnay oo u fadhiisannay oo ninka la yidhaahdo garaad cabdulaahi garaad saleebaan qoyskii iyo ehelkii iyo qabiilkii iyo beeshii uu ka tegeyna ilaahay samir iyo iiban ka siiyo sida ay isla garteen reer garaad iyo raaska ay isla garteen waxaannu waafaqnay go'aankooda haddaannu beeshii nahay waxaa kaloo la isla raacay 3 bilood ka bacdi inuu caana shubkiisu yahay maanta ajiibuunbaa nala ka raba haddaan cuqaasha nahay annagoo qoysaskii iyo ardaayadii mateledna waa soo dhowaynaynaa garaad cabdulaahi garaad saleebaan garaad maxamed hawshii garaadka garaad cabdulaahi garaad saleebaan oo ay ka soo bilaabantay siday ahaan jirtay qoyska ilaa iyo maxay ahaytoy ugaadhyahan oo dhan cuqaashiisa oo ay halkaa kaga baaqeen waannu qaadannay maanta waa shaacintii haddaannu nahay cuqaashii uu garaadka u ahaa soo dhowow baannu garaadku leenahay soo dhowow waa nin dhallinyaro ah waannu soo wada shaqaynay oo kollay 10 sanaa joogayna anigu garaad saleebaan la soo shaqeeyey isaguna uu garaadka ag fadhiya hadba ninkii ag fadhiistaa dee garaadka ka qaata ama caaqilka wixiise garaad waa ku soo dhowaynaynaa ducadii loo ducaynayay ducadii raacday mar walba waxaynu ku ducaysanaynaa kaynu dooranayno beddel khayr qaba waa tiibaa laynoo aqbalay garaadka ilaahay mid khayr qaba oo in anfaca aynu shaacinnay garaad cabdilaahi garaad saleebaan garaad maxamed waa u ducaynaynaa ilaahay aynooga dhigo garaadka aynu doorannay mid beddela oo aynu ku khayro aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan waxaynu dee isugu nimi hawl qaran oo qod weyn oo damala oo aynu harsanaynay ayaa inaga baxay inaynu aaskiisii isugu nimaadno u ducayno meelaynu joognaba isaga nimaadnana xaq baa laynoogu lahaa marka garaad cabdulaahi garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuudna waxaannu leenahay ku soo dhowow awalba waad shaqayn jirtay garaadkaasay noo soo gudbiyeen waa la qaadannay si guud iyo si gaaraba waa ula qaadannay hadduu ninku yahay ninkaa isimka ah uu ummaddu dooratay ilaahayna u dooray uu dhinto beddelkiisii haddii loo keenay oo uu lahaa oo caloosha nagaga jiray waa ku faraxsannahay oo qoyskii keenoo soo taagay waana qaadan waxaan leeyahay samiriye imaan ilaahay inaga siiyo ilmo garaad saleebaan iyo dhammaanteenba garaadkeennii shalay halka aynu ku duugnay naxariistii jallana ilaahay ka waraabiyo marka labaad mahadcelinta ugu horraysa waxaan siinayaa ilmo garaad saleebaan oo halkii uu ka baxay garaad saleebaan gartay inay curadkoodii soo taagaan raallina ku noqday caanoshubkana annagaa iska lahaynba garaad cali baanu lahayn garaad cali intii kale waa nala ka xoogay haddaannu nahay cuqaasha dhammaan waannu isla qaadannay go'aankii qabaa'ilku noo keenay garaad cabdilaahi garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud shaacinta ay noo soo gudbiyeen waa ku soo dhowaynaynaa waana hambalyaynaynaa
waxyaabo badan lagama sheekayn karo garaad saleebaan wixii uu ahaa lagama sheekayn karo waxaan leeyahay garaad cadaalad baa lagaaga baahan yahay wixii garaad iyo boqor looga baahan yahayba waa lagaaga baahan yahay sida horeba loo sheegay ilaahay waxaanu ka baryaynaa rabbigay subxaanahu wa tacaala ama ugaaryahanba aanu ka baryaynaa haddaanu gabdhaha nahay in ilaahay maqaalufada meel uga wada jeediyo garaad cabdulaahi garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa aada ugu mahadnaqay bulshadii soo dooratay isagoo ilaahayna ka baryay inuu xilkaasi u fududeeyo waxaan rabaa haddii inaan laba saddex qodob taabto anigu waxaan jeclaa runtii oo ilaahay markhaati ka yahay shalay waxaan ku idhi ardayga qolada cabdi maxamuud waxaad yeeshaan tacsi baynu ku jiraa arrinta dib inoogu dhiga xalay abbaaro markay ahayd 12 waxaa la yidhi inayna wax dambe isugu iman yaraad hawshaa la wareegto waxba inoo kama dhexeeya والله بالله طلع كتاب بالليل إن أنا عرفتها ما قعدته أنا واحد بدوري أنا يا مسكسي نصنو قال كيو يريد يو واحد طلع فيها نصنو حاول مركز هاي زميل صوت مالك تاقة كام عن مرة فيها ما قبحي waxaan ku jeedaa inaan dadka meesha jooga iyo kuwa meediyaha daawan doona inaan sidaa ugu bayaamiyo talada qoladii fayska soo bilaabaysay qabiilka leefaahiye cabdi iyaga halkaas soo dhigay dhammaantu halkaas yuwadeen anoo garowga jooga la yidhaahda waa midaysannahay hawshaas waxaan rabnaa inaan hore usii dhaqaajino sidaasaa maxamuud garaad ama ugaariyahan ciday doontaa ha sheegteen saasay ugu soo gudbiyeen taasaa tolkiina uga aqbalay arrintaas horta sidaas qodobooyinkaasaan ka taabanayaa waxaynu rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaynu u baahannahay inaan wada shaqayno muddadaa waxaa qabtay cuqaashii maxamuud garaad ee goobta joogay iyagaa iyo waa 3 bilood inta hore shaqadii waasiin shaqadii waynu sii wadaynaa hadday nabadayn tahay iyo hadday wax kastoo la qabto tahay hawshiina halkii baynu ka sii wadaynaa muddaduna xilligaasay ahaanaysaa saaxiibkii cabdirashiid jiif caaqil oo yiri waxaan codsaday cakaara waa aqbalay waa cakaara waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland